السلام عليكم وأنا السلامة لما أصحاب شرفت له وحنا جنا كبردا علي ما أنت وحنا دين له وداعي لما تنكروا ونصيب كبدن أي قناتك كاميرا دلوية قناة كابت كاميرا قلنا لا دعوة halkan aad u jeedaan waa biriish laami caadiya gawaadhiduna saanis kaga maraya waxa dhacayana cid war u haysa ma jirto fooqaas baa soo dumi raba cid uu waxyeeleynayaana ma jiro bal eeg ilaahay sida uu ummadiisa u jecel yahay hal gaadhi wax muu yeeleen haddana wiilkan mootada ciyaaraya intuu jirsado wiilka moobilka ku hadlaya nasiibka badan teeda kale wax naxdinaa muu sameynaya hawshiisii buu iska sii watay haddana baleeg wiilkan yaree dayloodka iska baashaale waxa ku dhaca ciyaartan oo iyana kamida ciyaaraha isboortiska kuwa ugu khatarsan ee lagu ciyaaro barafka wiilkan goolwadaha waxa ku dhaca baleega Marty goes, picks it up, and here he goes. It's going to go off the pipe, off the other pipe, off Werder's toe along the goal line. mucjisadan kaloo dad badan ka soo jiidata ayaa waxaa lagu tilmaamaa inay ka mid tahay dadka ugu nasiibka badan ismana odhanaysid waa caqli gal haddii aad u fiirsatid waxaad odhanaysaa qofka calaamada leh ayay kubaddu ku dhacaysa balse kumay dhicine way ka leexatay ta kale mucjisada waxay tahay wiilkaa gaadhi muu jirin mise wuu ka leexay So, jetzt Marcel Hirscher. Werden, dann übernimmt er wieder die Führung. Da ist die Ding runter, Krone! ninkan kale wariya ah baleega basku intuu u sigo isagoo waxaasba uu joojinaya warkiisa uu iska sii wato Os veículos passam em alta velocidade. baleega wiilkan sidhwada ah xashiish yar wax uu moodayuu dhulka ka qaaday balse banbay noqotay hadduuna arki lahayn dad badan baa meesha naftooda ku weyn lahaa dadkan kalena meesha bandhig bay ku samaysanayeen balse maxaa ka raacay ninkaas kaloo isna ka mid ah dadka ugu nasiibka badan dar ilaahay baleega waxa ku dhaca baaskoolad buu cabbeeyey way dhacday balse isaga wax ma yeelin laakiin kofyadiiun bay ka tuurtay dumarkana bal lama filaanka ku dhaca balila daawada kaloo isna sawir qaadaya diyaaraddu baleega intay u jirsatay balse maxay ka soo doontay asriyadaa dhan ee dumaya hal qof oo ku jiraa ma jirto dhagaxaa soo dhacayna hal qof uu waxyeeleeya ma jirto waana dadka ugu nasiibka badan adduunka dhacdadii kale naxdinta laheed ee ugu dambeyn farxadda isku beddeshay baa ahayd wiilkaa waxaa cuni gaadhay libaax badeed
balse markii dambe wuu kasoo badbaaday wuxuuna ka mid yahay dadkii nasiibka ugu badnaa. aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay daawashada daawatay. fadlan haddaad muuqaalka ka heshay like-saa comment ka soo bixi hana hilmaamin inaad subscribe saartid. aad iyo aad baad u mahadsan tahay.